Assalaamu calaykum, waa Yuusuf Shire, isku soo noqod wanaagsan. Waa mar kale iyo barnaamijkeeni Faalo Book oo uu maanta miiska inoo saaran yahay book aad qaali u ah, Mastery by Robert Greene. Waxaan maqalnaa marar badan, qofkaas waa master, khuburo ku xeel dheer arrimahaas ama qof looga dambeeya qaybtaas. Marka bookgani wuxuu ka sheekeynayaa wadada loo maro inuu qofku ku noqdo master ama qof ku xeel dheer ama leh khibrad badan oo ku saabsan qismi gaar ah. Isla markaas bookgani waxa uu diidayaa fikir caan ah oo dhaha qofku inuu guul gaaro waa inuu talent leeyahay, waxaan hibo iyo inuu u dhasho. Wuxuu taagan yahay bookgani ku doodayaa ma ahe qofku wuu baran karaa practice badan, ku celcelin badan ayuu ku gaari karaa inuu noqdo qof qismigaasi indheergarad ku ah, ku xeel dheer ama master ku ah. qoraagu isagoo markaasna siinaya tallaabooyin la soo tijaabiyay oo ay isticmaaleen mastaro taariikhdii hore iyo kuwo waqtigan la joogo ee xaadirka ahba. Si guud bookgani waxa uu uga hadlayaa waxa ay tahay inaad qabato noloshaada shaqo, sida aad u kordhin karto xirfadaada iyo khibradaha daruuriga ah ee aad ku gaari karto mastery. Waxba yaanan hadal in ku daalina aan u gudagalo 5 wado oo lagu gaaro mastery. qodobka koowaad, discovering your calling. qoraagu wuxuu waqti badan ku dhumiyaa in marka hore intii aadan mastery gaarin ama aadan khabiir noqon qayb, waxaa daruuri ah in aad taqaanid waxa aad doonaysid inaad ka soo dhalaashid ama aad ka muuqat ama lagugu tiriyo inaad tahay dadka ugu cadcad ama ugu aqoonta badan qismigaas ama qaybtaas. Marka waa inaynu marka hore dooranaa oo aynu naqaanaa waxa ay tahay inaanu waqti badan gelino ama aanu khabiir ku noqono ama xirfadda aanu rabno inaanu si fiican uga soo dhalaalno. qoraagu marka waxa uu leeyahay dhammaanteen waxaanu leenahay dareen ama shucuur inaga dhexdeena ku jirta, taas oo nagu riixida ama aynu soo jiidano waxyaabaha markaasi naxiisa geliya. dareemadaasi waxa ay clear yihiin ama ay cad yihiin marka aynu nahay caruurta. qofku marka uu soo koro bulshada ayaa meelo kale u sii jeedisa. Marka waxa uu qoraagu ku talinayaa inaynu gadaal u booqano oo aynu gadaal u fiirino original mind waxa uu ugu magac daray, kaas oo ah ciyaalnimadeenii wixii xiisaha gaarka ah na gelin jiray, ciyaalnimadeenii wixii aan waqtiga ugu badan gelin jirnay ama aan aad u jeclayn inaanu ka shaqeyno, inaanu gadaal u baarno. taas ayaa waxay ku noqon kartaa khibrad aad waqti badan gelisid ama guul badan ka gaartid markii aad weynaatid. Si kale oo aad ku heli kartid waxa life taskiga ama noloshaada ay tahay inaad qabatid ama aad u joogtid inaad runtii ka guul gaartid waxa weeye inaad aamintid shucuurtaada. Trust your gut feeling. Gut feeling maxaa lagu dhahaa af Soomaali? Gut feeling micnaheeda idinka ayaan inii daynayaa, laakiin waxa ay maskaxdeeda iga sawiran tahay markii aad hawl qabanaysid qaybtood waxaad dareemaysaa inay waxaan tahay sax, wixii lagugu talagalay aad faraha kula jirtid oo aad muhiimad dareemaysid, ku faraxsan tahay. Marka wuxuu leeyahay qoraagu aamin intuitionka iyo shucuurta ay dareenka awoodda badan ee ku farxad geliya marka hawlaha qaybtood qabanaysid. qodobka labaad, apprenticeship. markii aynu soo dhamayno waxbarashada caadiga ah heerka dugsiga sare iyo jaamacadda waxaynu u soo gudubnaa xaalad kale oo barasho oo ah inaanu corporate world galno ama dunida shaqada inta galno aanu internship oo kale meel ka bilowna ama aan tababar kale ka bilowna shirkad, kaas oo iyaduna ah qayb cilmiga kamid ah, qayb aad ku kasbanaysid khibrad cusub. marka goortaad soo dhamaysid dunidaada waxbarasho ee aad soo gelisid dunida shaqada, waxaa hubisaa in aad dooratid qismi iyo qayb aqoon badan kugu soo kordhinaya adiguna aad jacayl badan u haysid. markii aad sameynaysid internship ama aad la shaqeynaysid shaqooyin practical ah oo dad badani ay shirkadaas kala shaqeeyaan oo kale, isku day inaad bay'ada kugu xeeran aad si fiican u fiirsatid oo dadkan say u wada xiriiraan, say isku tixgeliyaan, awooddu say u shaqeyso marka dunida shirkadaha dhexdooda la joogo. yaysan noqon meel aad ku soo bandhigtid talentigaaga ama haddaad wax ku fiican tahay ama show off aad samaysid. isku day inaad noqotid qof humble ah oo markii aad internship iyo tababaro ka qaadanaysid meelaha shirkadda ama aydba tahay shirkaddu meelaha ka shaqeysid, isku day inaad tahay qof humble oo dabacsan, u diyaar ah inuu qof kasta wax ka barto. isla shaqadaas intaa ku jirtid waxa uu kalo qoraagu nagula talinayaa in aad focus ka saartid hal qayb. markii aad tababar u joogtid shirkad meel kasta ha isku dayin inaad wax ka baratid, isku day inaad qayb waqti badan gelisid qaybtaasna aad aqoon badan ka dhaxashid.
ugu dambeyntiina qodobkan wuxuu uga baxayaa qoraagu isagoo ku talinaya oo leh practice badan samee kadibna cilmigii aad ka dhaxashay meeshaas aad tababarka u joogtay ama aad ka shaqaynaysay isku day inaad experiment u bedeshid oo wixii lagu sheegay ama lagu akhriyay ama lagu tusay inaad adiguna markeeda aad qabatid oo aad qodobba mar tijaabisid waxaan lagu baray inay shaqaynayaan iyo in kale. dad badan ayaa waxa ay ka fakaraan markii ay dunida shaqada galayaan lacag. marka qoraagu wuxuu nagula talinayaa in aynu lacagta aad uga fakerin. shaqo lacag ku siisa waxa ka muhiimsan oo ka wanaagsan shaqo ku siisa khibrad iyo waayo aragnimo iyo skill ama xirfad ku anfacda biri. sidoo kale wax kasta oo aad ka baratid markii aad shaqaynaysid ama internship u joogtid shirkad waxaad isku daydaa inaadan aaminin inay tahay dhammaadkii aqoonta. waa inaad challenge garaysid waxa ay dadkii wax ku barayay ay kuu soo sheegeen oo aad isku daydid inay maskaxdaadu ahaato mid furan markastana diyaar u ah inay wax badan barato oo aad sii dhaafisid meesha ay keeneen kuwii kaa horreeyay. waxyi maaha waxaan lagu baray laftarkaagu inta si fiican u fiirisid waxaad kusoo kobcin kartaa sharaxaado cusub iyo qaabab cusub oo ay shaqadaas u socoto. qodobka saddexaad waa mentorship. runtii waa qodob ka mid ah qodobadii aan aadka uga helay intii aan buuggan akhrinayay. maxaa yeelay inaad qof mentor ah wax ka baratid waa mid ka mid ah qaababka ugu wanaagsan oo ugu wax soo saarka badan ee cilmi ama xirfad lagu kasbado. mentorku waa qof ka khibrad badan iyo la taliye aad aaminsan tahay. haddaba mentorka saxda ahi waa mentorka kugu weeciya ama kugu leexiya meesha saxda ah, ku tusa jidka saxda ah ee aad guushaada u qaadaysid. waa mentorka aqoontiisa iyo khibradiisa waayo aragnimadiisa oo dhan adiga kugu soo wareejiyo oo aqoontiisa iyo waxa uu khibrad leeyahay xirfadiisa oo dhan waxay noqotaa waxaad adigu haysatid oo aad adigu leedahay. wuxuu kaloo kaa caawiyaa oo ku siiya feedback iyo warcelin uu comment iyo aragtiyo ka bixinaya waxa aad markaas qabanaysid inta ka saxda ah iyo inta ka qaladka ahba. dad badan ayaanan aaminsanayn in qofka khibrad iyo waayo aragsana ama ka aqoon badan aan wax ka baratid laakiin runtii markii qofku jaamacad soo dhameeyo waa marxalad adag. dad badan baa waxa laga yaabaa brightooda iyo qabkooda iyo xoogaa intay aqoon isbidaan inay yiraahdaan maanta qof kale intaas sano wax soo baranayo qof kale inaan wax ka barto oo hoos fariisto ima cuntanto ama ima qalanto. dareenka kibirka iyo garaadiirida ku jirta inta meel iska dhigno inaanu isku dayno inaanu qof kasta wax ka barano. maxaa yeelay mentor waan u wada baahanahay oo qof kasta wuxuu haystaa waqti kooban energy kooban oo ma awoodid inaad wax kasta oo markaasi ay tahay inaad baratid aad waqtigaagan yar aad baratid. energy-ga iyo waqtiga yar awgiis wuxuu mentorku naga caawinayaa in xirfad ay naga qaadan lahayd inaanu ku barano 10 sano inaynu ku barano 5 sano. maxaa yeelay dadkan hore ay waxaan u soo barteen waxay naga saacidayaan inaanu wixii waqtiga badan nooga bixi lahaa aynu ku barano oo aynu ugu takhasusno waqti kooban gudihiis. haddaba dooro mentor aad wax badan ka baran karto oo aqoon badan u leh dhinacyo kala duwan oo kaa tusi kara xaaladda darafyo kala duwan isagoo kasoo eegaya. ha noqdo mid awoodiisa iyo aqoontiisa aad ictiraafsan tahay oo qof aad adigu ka shakisan tahay ama aadan ku tuhmayn aqoon waxba kama baran karaysid. waqti badan la qaado oo isku day inaad cilmigiisa iyo aragtiyadiisa oo dhan usoo xawilatid naftaada. qodobka afraad qoraagu wuxuu qayb badan oo ka mid ah buugga kaga hadlayaa social intelligence yani garaadka bulshada iyo la dhaqanka bulshada. waana runtii qodob aad iyo aad muhiim u ah. wuxuuna leeyahay qofku waa in uu awood u leeyahay in uu u arko xaaladdu sida ay tahay. see the people as they are. inaynu fiirino xaalad kasta u aragno si realistic ah oo aynu ku hodsoomin ama aynu ku khatalmin waxyaabaha sida muuqaalka qofku suu soo labisto iyo sida uu bulshada markuu dhex joogo u hadlayo. marka waa xirfad gaar ah iyaduna ay tahay qof kasta inuu barto sidii uu dadka kale ula xiriiri lahaa, sidii aad u kala bedelan lahaydeen xogta. waxaana runtii arkay qodobkan markii uu qoraagu ka sheekeynayay in uu u dhawaa buug aan isbuuci hore review ka sameyn how to win friends and influence people oo aan linkigiisa inuu ku reebi doono hoos. waxa weeye qaabka
inuu qofku dhex mari karayo bulshada dhexdeeda laana xaalado iyo duruufo kala duwan ayaa maamula meesha aynu ku noolnahay iyo dunidan aan ku noolnahay marka inaad fahmi karaysid shucuurtooda inaad inta adigu isqaadis dhigi kartid qofka kale booska uu fadhiyo iyo suu wax usoo arkayo waa khibradaha asaaska u ah qofku inuu wax barto in lagu dhaliili karo aadan dhaliisha ka qaylinayn inaad adigu wax dhaliili kartid in lagu sixi karo waa inaad marka cadifooyinka ay shucuurtaasoo dhan awood u leedahay inaad maamushid qodobka u dambeeya oo ah mastery qofkii inuu yimaado stageka u dambeeya oo waxaan ku takhasuso oo khibradii uu doortay ama wixii uu jeclaa ama inclinationka u hayay ee ilaa ciyaalnimadiisii uu waqtiga badan gelinaya ama soo jiidan jiray inuu heerka u sarreeya ka gaaro oo lagu tilmaamo qofka hogaaminaya ama qofka looga dambeeyo qaybtaas waa stagekaas kaas marka goortuu qofku soo gaaraya ama uu joogo waxaa daruuri ah inuu qofku u warhayo xiriirka iyo isaga iyo kala dhexeeya bay-ada environmentiga uu qofku markaasi ku nool yahay wuxuuna leeyahay qof kastaa waa inuu barto awoodiisa waa inuu ogaado waxa uu gudo waxa uu gooyo isagoo markaa awoodiisa ogna uu la dhaqaaqo oo markaas dunidii kale ku saameeyo awoodiisa khibradiisa iyo wixii markaas uu isagu iska fahmay haddii aad leedahay khibradeyda waa ogahay wixii aan anigu qaban lahaa ama nafteedu jeceshahay waa ogahay waqti intee la-eg bay igu qaadanaysaa inaan master ku noqdo ama aan ku noqdo qofka u sarreeya kuliyadaas ama qaybtaas waqtiga wuxuu leeyahay qoraagu aad ha isugu murjin oo aad ha uga walwalin la-anna waxa ay ku xiran tahay focuskeenna waqtiga aanu gelino hawshaas garaadkeenna diyaar ahaan sanaanteenna aanu diyaarka u nahay iyo saacadaha aynu gelino waxaan ay ku xiran tahay ka guulgaaristeedu waxa ay kaloo ku xiran tahay waxa markaas xirfadda aad markaas adigu gacanta ku haysid xirfadana waxaa laga yaabaa saacado yar inay kugu qaadato inaad si fiican u barato kuwa qaybtuna waxaa laga yaabaa inay sanado badan kugu qaadato inaad meel fiican ka gaartid marna naftaada ha u sheegin inaad daacsan tahay haddii macaad adigu tahay qof da-diisu meel dhexe marayso runtii mastery by Robert Greene waa buug kugu riixaya oo kugu dhiirigelinaya inaad daba kacdo riyooyinkaaga in aad u halganto oo aadan ka harin oo halka u dambaysa iyo mastery aad ka gaartid iyo inaad noqotid qof ku xeel dheer ama khabiir ku ah qaybtaas markaas aad ku dooratay jacaylka iyo baahida ay naftaada iyo bulshadaada u qabto buuggan wuxuu kaa caawinayaa inaad fahantid sida sawirka guud ee dunida shaqada sida khibrado cusub lagu barto sida aad u heli karaysid tallaabooyin kaa caawiya inay industrigaaga ama qaybta aad dooratay aad noqotid dadka ugu sarsareeya ee markaasi farta lagu fiiqo inay aqoon badan u leeyihiin waxaan inoo wada rajaynayaa dhammaanteen in riyooyinkeena iyo himilooyinkeenu noo rumoobaan muuqaalkan yarna sidoo kale waxaan rajaynayaa in uu fikir kugu dhaliyo ugu yaraan halkaas ayaan kusoo gabagabeynayaa faallada maanta ilaa kulanti dambe oo xiiso leh waa yuusuf shira oo idinle isma dhaafin haddii aad u baahan tahay buugga PDF-kiisa igala soo xiriir social media accountskayga oo aan meesha kusoo qoray fadlan ha ilaawin inaad tirahdid share subscribe like lana sii wadaaga asxaabtaada